السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين وقال كانوا حرب إن ندي كل وذاقه خلافك حوجن الدولة أمريكان كه إسرائيل سوق على ضحك علي أو سي بلارنية مدحوين كحجان كأمريكان كجي دي فانس أو سي كلول ويرري قالها وزير ده كجرا حكومة بنيامين نتنياهو كواسي أو كسوهر جستي هشيس كإسفهم كه maraykanka iyo Iiraan ay kala saxiixdeen maxay yihiin waxyaabaha la qarin jiray oo si cad hadda uu u sheegayo madaxweyne ku xigeenka maraykanka waan idin la wadaagaya wadahadaladii dhinaca farsamada oo la filayay magaalada Geneva ee wadanka Switzerland inay uga furmaan maraykanka iyo Iiraan oo ah 60 maalmood in lagu dhameystiro wadahadalada harsan dib u dhac miya ku yimid arintaasi muxuu ka yiri madaxweyne ku xigeenka maraykanka oo wafdiga la filayay in maalinta bariya ay baxaan hogaamiyo arintaasina muxuu ka yiri waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaa waxaan ognahay kadib heshiiskii maraykanka iyo Iiraan dhaxmaray oo isfahamka ahaa isla markaana lagu dhameynayay colaadda 100 maalmood ka badan u dhaxaysay labada dhinac laakiin markii hore maraykanka iyo Israa'iil dagaalka ay si wada jir ah u galeen waliba la leeyahay Israa'iil ayaa Trump ku qasabtay laakiin hadda heshiiska marka la galayay Israa'iil waa laga saaray meesha oo waxa heshiiska wada galay maraykanka iyo Iiraan arintaasina Israa'iil si aad ah ay uga carootay waxay tiri dagaalka waan wada galnay laakiin meeshii lagu dagaalay waan ogeyn laakiin meeshii lagu heshiiyay ma aanan ogeyn arintaasi xukuumadda Benjamin Netanyahu wasiirada xagjirada ee ku jira si aad ah ay uga soo horjeesteen waxayna yiraahdeen heshiiskaasi inagana ma quseeyo laakiin sida muuqata waa uu quseeyo qodobka koobaad waxa ku qoran in Israa'iil ay joojiso duqaymaha ay ku hayso wadanka Lubnaan gaar ahaan Hezbollah Iiraanna waxa ay tiri haddii aysan Israa'iil joojin Maraykan oo adiga waan kula heshiiyay laakiin Israa'iil lama heshiinayo haddii duqayntaasi aysan joojin oo waan ka jawaabaya haddaba xaaladdu halkaas iyadoo marayso shalay aqalka cad waxa shir jaraa'id ku qabtay madaxweyne ku xigeenka Maraykanka JD Vance waxa uu shirkaasi jaraa'id uu ku difaacayay heshiiskan isfahamka ah oo Maraykanka iyo Iiraan ay kala saxiixdeen waxana uu sheegay in hadda maraakiibtu ay bilaabeen in marinka Hormuz ay soo maraan isla markaana shidaal aad u fara badan oo 12 milyan oo fuusta ka badan uu soo maray Iiraanna aysan wax diyaarada daroona maraakiibta halkaasi maraysay aysan ku soo duqeynin waxa sidoo kale uu sheegay Maraykanku go'doomintii inuu qaaday oo maraakiibta Iiraan inay galaan oo ay ka soo baxaan oo saliidooda ay soo qaadaan arintaasina dhinaca Maraykanka I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. And importantly, they're going to keep falling further given how low oil prices are. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement. laakiin shirkiisa jaraa'id waxa uu si aad ah ugu weeraray golaha wasiirada ee kamid ah xukuumadda Benjamin Netanyahu kuwaasi oo heshiiskan ka soo horjeestay waxyaabo fara badan oo Maraykanka iyo Israa'iil ka dhaxeeyay oo la qarin jirayna shaaca ayuu ka qaaday waxa uu yiri madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Netanyahu waxaan maqlay inuu ka careysan yahay heshiiskan laakiin waxa uu yiri waxyaabaha anigu markaan la hadlayay uu idahayay iyo waxyaabaha aan ka maqlayo waa kala duwan yihiin kama turjumayso yiri hadalka markii aan la hadlayay uu ugu yiri iyo hadallada laga yaabo inuu dad kale u sheegayo in ay kala duwan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan arintan iraado arintanna waa idhibaysa ayuu yiri inaan iraado waxa uu yiri waxa jira xubno ku jira golaha wasiirada ee Bibi waxa loo yaqaanaa Netanyahu kuwaasi oo waxa uu sheegay weerar ku qaaday heshiiskan xitaa sidoo kalena waxa uu yiri mararka qaarna si shakhsiyana u weeraray madaxweynaha Maraykanka marka wuxuu yiri fariintaydu waxa ay tahay laba qodob inaan arintan aan ka iraado labadaas qodob waxa yihiin qodobka koobaad madaxweyne Donald J Trump waa madaxweynaha kaliya ee madax ka ah wadan caalam ah guud ahaan wadamada caalamka marka la eego kaasi oo u naxariista dawladda Israa'iil xilligan hadda la joogo
waxana uu sheegay in uu yahay madaxweynaha waddanka ugu awoodda badan ee caalamka waa sida isagu hadalka u dhigaye marka waxa uu yiri haddii aad ka mid tahay golaha wasiirada ee Israa'iil ma ahan in aad weerarto qofka kaliya ee awoodda leh ee xulufada la ah dowladda Israa'iil kaasi oo waxa uu yiri meel kasta oo caalamka guud ahaan caalamka aysan jirin hadda qof kale oo sida madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay Israa'iil u taageersan guud ahaan caalamka kama soo helaysid marka hadalkan turjubaadiisu waxay u dhigmaysaa in Israa'iil guud ahaan caalamkii laga nacay laakiin dowladda kaliya oo garab taagan oo taageeraysa ay tahay dowladda Mareykanka marka waxa uu leeyahay taageerada kaliya oo aad haysataan hadda guud ahaan caalamka iyo madaxweynaha kaliya oo guud ahaan wadamada caalamka ay taageersan taageeradaasi halumina gaar ahaan waxa uu la jeedaa wasiirka amniga Ben Gvir iyo wasiirka maaliyadda Smotrich oo heshiiskan Mareykanka iyo Iiraan ay wada gaareen si aad uga soo horjeestay oo yiri inaga nama quseeyo haddaba waa kan madaxweyne ku-xigeenka oo bal arrintaasi xitaa afka ku ballaarinaya oo aan ka leexleexanayn Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu yiri fariinta labaad oo aan doonayo inaan u diro qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Bibi ku jira waxa ay tahay waxa uu yiri horta Bibi isaga waan ku amaanaya maxaa yeelay waxa uu yiri wadada ay iyagu qaadeen ma uusan qaadin maxaa yeelay si cad oo public intuu u soo istaagin Netanyahu wali ma uusan dhihin heshiiskaasi inaga nama quseeyo oo waan diidanahay wixii uu qababa waa uu la aamusan yahay laakiin labada nin wasiiradan banaanka ayay dhigteen diidmadooda ku aadan heshiiskan marka wuxuu yiri isaga waan ku amaanaya wadada ay qaadeen golaha xubnahaasi golaha wasiirada ma uusan qaadin laakiin waxa uu yiri golaha wasiirada Israa'iil ee weeraraya madaxweynaha Mareykanka waxaan rabaa inaan u sheego ayuu yiri 3 bilood ee la soo dhaafay marka 3 meelood laba kamid ah hubka lagu difaacay ayuu yiri dowladda Israa'iil waxa lagu sameeyay gacmo Mareykana waxaana lagu bixiyay lacagta dollarka ee canshuur bixiyaasha ee Mareykanka marka madaxweyne ku-xigeenku waxa uu banaanka dhiganaya oo cadeynaya gantaalada difaaca oo Iiraan gantaalada ay soo tuureysay difaacayay oo qabanayay hawada ku qabanayay waanba ogeyn laakiin inta badan saan looma shaacin jirin inuu hadda banaanka dhiganayo uu leeyahay gacmaha Mareykanka ayaa lagu sameeyay lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka ayaana lagu bixiyay marka arrintaasi si cad ayuu u sheegaya marka waxa uu yiri problemka Israa'iil ma ahan madaxweyne Donald J. Trump laakiin waxa uu yiri qof kasta oo ku jira dowladda Israa'iil oo u maleeya in problemka ugu weyn ee dowladda Israa'iil uu yahay madaxweyne Donald J. Trump ama madaxweynaha Mareykanka waxa uu u baahan yahay inuu hurdada ka kaco wargolaha wasiirada Israa'iil ee dhaleelaya heshiiskan madaxweyne Trumpna problemkooda ugu weyn u maleeya waad hurdaysaana hurdada ka kaca ayuu yiri marka waxa uu sheegay marka aad hurdada ka kacdaan ayuu yiri waxa aad urisaan xaqiiqda dhabta ah ee wadankiina uu ku jiro xaqiiqda dhabta ah ee wadankiina uu ku jiro bal eega oo dib isugu laabta oo hurdada ka kaca sidaas ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka bal waa kan isagoo arrintaasi ka hadlay And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. ugu dambeyntii waxa la filayay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance inay Geneva iyo Switzerland aadaan heshiiska horta waa la saxiixay dhinaca Iiraanna way saxiixeen electronically madaxweyne Trumpna waa kii arbacadii shirkii wadamada G7 ku saxiixay marka muhiimad ma lahan xaflad kale oo la qabto heshiis lagu saxiixo laakiin waxa la isugu tagi rabay wada hadaladii kale ee farsamada 60kii maalmood ee wada hadalka
ayaa la filayay inuu bilowdo maadaama heshiiskan uu dhaqan galay hormus la furay maraykankuna go'doomintii uu qaaday dagaalkiina la joojiyey laakiin 60kii maalmood oo wada hadallada in la furo oo bilaabmaan ayay ahayd marka madaxweyne ku-xigeenka waxaa la filayay berri oo sabtiya inuu baxo sidaas darteed waxa uu yiri wada hadallada farsamada waxaa la filayay weekendigan inay bilowdaan laakiin waxa uu yiri waxaa laga yaabaa inay dib u dhacaan maxaa yeelay waddanka Iiraan ma ahan waddan fudud ee laga soo baxay yiri hawadeedii arrimahaas ayuu ka hadlaya sidaas darteed waxa uu sheegay in laga yaabo in dib u dhac uu ku yimaado laakiin wada hadalladaasi dhinaca farsamada ah 60ka maalmood waa ay bilaabanayaan laakiin dib u dhac inuu ku yimaadana waa macquul ayuu yiri waa kan isagoo ka hadlayay mar kale wada hadalladaasi iyo dib u dhac laga yaabo in ay ku yimaado. Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. We're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks. How do you destroy this highly enriched uranium? All that stuff. That you really just have to get into the nitty gritty on. So, I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure. ugu dambeyntii hadda maanta Israa'iil waa ay duqeysay Lubnaan Xisbullah waxa la leeyahay Lubnaan 18 qof ayaa ku dhimatay Israa'iilna 4 askari ayaa laga dilay hadda waxa soo baxaysa marka xabad joojin inay gaareen laakiin xabad joojinta Xisbullah Israa'iil u dhaxaysa waa on kaliya afka markasta waxa la arkayaa in inta xabad joojin la gaaray haddana labada dhinac ay istuqeeyaan laakiin heshiiska xabad joojinta ama isfahamka Mareykanka iyo Iiraan ay wada galeen qayb ay arintan ka tahay haddana waxa la leeyahay xabad joojin kale ayaa labada dhinac ay gaareen laakiin arintan la yaab kale Trump waan ogeyn inuu Netanyahu mar uu wacay uscaayay uu yiri aniga dartii ayaa banaanka ku joogtaa mar hore ayaa xabsi ku jiray lahayd isla markaana sidoo kale uu yiri caalamka waa laga nacay adiga dartaa ayaa Israa'iil loo nacay laakiin haddana madaxweyne ku-xigeenka inuu yiraahdo war anaga ayaa idin difaacaynay isla markaana hubkeena iyo lacagteenan idinku bixinaynay haddana ma waxaad ka soo horjeesanaysaan madaxweynaha kaliya ee idin naxariista ee caalamka guud ahaan haddii aad tagtaan oo la idinka nacay ninka kaliya oo idin taageersan miyaad ka soo horjeesanaysaan bal Mareykanka iyo Israa'iil halkaasi ay u maraysaa labadii xaq darro ku heshiisa xaq ay ku dagaalaan waxyaabaha kale ee ka soo kordha haddii alla idmo wayna arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin